السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. qisadii Nabi Daawud calayhi salaam qaybtii ku xigtay in meesha ka sii bilaabi doonaa waa kanaalka iftiinka magaciisuna waa Diin Xuseen Shaab ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta saaxiib. sidaas uu Daawud ku galay gurigii boqornimada isagoo yar markuu weynaadayna wuxuu noqday nabi boqor ah wuxuuna Ilaahay siiyay awood aad u ballaaran oo ku taagan laba tiir xoog badan nabinimo iyo boqornimo xoog badan. rabbina wuxuu kula hadlay hadal aad u qiimo sareeya daawud waxaan ka dhignay khaliifaha awoodda haya ee dhulka adigana dadka ku xukun xaq iyo cadaalad hana raacin hawada iyo naftu waxay jeceshahay. wuxuu tusaale khatar ku ah boqor ku xoog badan fulinta cadaaladda la dagaalanka dulmiga iyo nabi aad u cibaado badan iyo alla ka cabsi badan. nabi daawud maalmihiisu waxay u qaybsamayeen 3 qaybood: maalin shaqo, maalin cibaado iyo maalin nasasho. maalin shaqo u gaar ah maamulka dowladda, ciidanka fulinta cadaaladda iyo wixii la midka ah. maalin cibaado uusan ka soo baxaynin mixraabka oo Ilaahay ku caabudayo alla dambi dhaafna weydiisanayo wixii la midka ah. iyo maalin nasasho u gaar ah raaxada nafta iyo haweenadiisa iyo ciyaalkiisa iyo xoolihiisa daryeelkooda. sidaas darteed buu daawud tusaalaan isagoo kale la sheegin. nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri salaada waxaa ugu fadli badan salaadii daawud. habeenkii nuskii buu seexan jiray 3 meel halana uu tukan jiray. soonka waxaa ugu darajo sareeya soonkii daawud. maalin buu soomi jiray maalinna uu furi jiray. risqiga lawna waxaa ugu qiimaha badan kii daawud oo ma cuni jir wax uu gacantiisa ku soo shaqaysanin. waxaa kaloo rabbi faray daawud inuu sameeyo shukrin iyo mahadcelin fara badan. wuxuuna oran jiray yaa rabbi sideen kugu mahadceliyaa inaan kuu mahadceliyo waxaan ku gaari karaa oo kaliya nimcada aad i siisay. dhinaca kalena nabi daawud wuxuu alle karsiiyey samaynta hubka gaashaanka iyo qalabka dagaalka oo dhani. sidaas darteed buu rabbi yiri xukunkiisa ayaan adkeynay hub iyo cudud waxaan siinay xikmad aad u sareysa iyo khitaabka hadalka loo cadeeyo. sidaas darteed nabi daawud calayhi salaam waxaa tusaale laga dayda ah quruxda codka, awoodda iyo cududda, soonka, salaada, tarbiyad. haddaba waxaa waajib ah inuu qof kasta muslim ah nabi daawud ku daydo, wax ka barto, hiigsado kartidii daawud calayhi salaam. saaxiibayaal, qisadii nabi daawud calayhi salaam halka ayay nagu eg tahay. intaan ku kulmi doono tan iyo muuqaalkan xig. fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.